labaatankii bishii Juun sanadkii 2017 Cabdikariim Makhtal Maxamuud Axmed oo 31 jir ah waxa uu hor yimid maxkamad milatari oo ku taala magaalada Muqdisho waxaana lagu xukumay 20 sano oo xariga. Dambiga lagu helay waxa uu ka koobnaa 3 qodob. Waa tan hore inuu wax u basaasay waddan shisheeye oo u soo diray dalka Soomaaliya si uu u fuliyo falal lid ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo lagu helay dambiyada kala ah isku day dil iyo horkicid dambi isagoo abaabulay in la dilo 3 shakhsi oo ku noolaa magaalada Muqdisho. Cabdikariim Makhtal Maxamuud Axmed waxa uu shirqoolkan bilaabay bishii Maars oo 3 bilood ka hor xilliga ay dhacayso maxkamadeyntaasi. Labadii bishii Abriilna waxa uu isku dayay inuu dilo kan ugu horeeya ee 3 shakhsi oo bartilmaameed u ahaa. Xuseen Yuusuf Faarax waxa uu ahaa 3 qof ee uu bartilmaameedsanayay kan ugu horeeya. 4 nin baa waxay ii timid baabuur bay igu riday soolad iyo 2 qori baa la igu qabtay. Raggaasi soo kaxaysa waxay ka bixiyeen dharkiisii iyagoo kadibna rasaas la dhacay dharkii. kadibna waxay ku daadiyeen dhiig ka yimid neef ari ah oo la gowracay. waxayna dharkii u keeneen Cabdikariim Makhtal Maxamuud Axmed oo ka soo haray inkastoo uu shirqoolka soo mareegay. waxaana ay weydiisteen lacagtii uu ballan qaaday oo ahayd $15,000. waxa kaloo ay ka codsadeen inuu la hadal siiyo sirdoonka dawlad deriska ah oo soo amray in dilkaasi la fuliyo si ay ugu sheegaan mas'uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray. Cabdikariim Maxamuud Axmed Makhtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka u ahaa Xuseen Yuusuf Faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey. markii aniga insaas ahaa sawirkii laga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa la celiyey iyagoo hal diiwaanku uu samay $15,000 baan ku siisay. $15,000. $15,000. hase yeeshee intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayay laamaha amniga ee Soomaaliya. halkaasina waxaa ku buuxsamay ururintii cadeymaha maxkamadda iyo sirdoonka Soomaaliya ay sameynayeen. waxaa Cabdikariim Maxamuud Makhtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka Soomaaliya ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka cadaynayso in dilkaasi uu dhab ka ahaa. maxkamaddu waxay kala ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida. 3 shakhsi ee la bartilmaameedsanayay waxay ka tirsanaayeen ururka ONLF waxayna kala ahaayeen Xuseen Yuusuf Faarax oo goordhawaad codkiisa maqasheen, Maxamuud Sooc iyo qofka saddexaad oo ahaa Cabdikariim Muuse Qalbidhagax. Cabdikariim Muuse Qalbidhagax waxaa soo deyntiisa dhowaan kadib uu waraysi khaas ah oo siiyey barnaamijka galka baarista uu kaga hadlay dhacdadaasi. waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo ka soo gaarayay Itoobiya. sirdoonka Itoobiya iyo qolyo iskaashanaya idin daba socda waa nala dhihi jiray. digniintaasi noocee bay ahayd? ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd? maxay ahayd? ma la idin sheegay? waxay ahayd 180 waa idin dilayaa ahayd. mararka qaarkood waan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto laakiin waxay u badnayd in nala laynahayo. arrintaas u badan baan isku gaari jiray. dawladda Itoobiya federaalka mise maamulka Soomaalida mise labadaba ka imanaysa? intaba dhammaan waxay ii sheegeen qolada gacanta ugu haysay inay in badan ay raadinayeen daba socdeen dad badanna inay isticmaaleen dhowr jeer tiro badan ba iyagu dhaceen. mararka qaarkood meelo lagu soo sheegay inay tageen jalada hoteelada fariisinta baan helay marxalada iska shaahisay baan helay waxaas oo kale oo dhaceen. mar waxay dhaheen ugu dambeyn xaafadda degantahay baan soo helay ay dhaheen kasoo meeshay dhaheen xaafadaada waan ku soo aragnay aanan deganin. Cabdikariim Muuse Qalbidhagax waxa uu aaminsan yahay in sirdoonka Soomaaliya iyo hanaanka garsoorkuba ay shaqo ammaan leh qabteen si ay kiiskaasi uga salgaaraan. sirdoonku Soomaalidu shaqo way fariishireen khayrlaasi marka ficilkaas iyo dhibaatada shirqoolkaas maxkamadda la saaray xukunka ku dhacay inahaas waxay ahayd intii shaqo fiican ay qabteen oo lagu ammaanay. kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xiriiray mas'uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Khadar Cabdi Ismaaciil waa madaxa xarunta dhexe ee xisbiga shacbiga Soomaalida Itoobiya. in muddo ahna waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka. xaqiiqatan xogtaas ma hayo balse haddii ilaahay ilaaho hay'adaha ay khusayso ama goobaha ay khusayso intaan weydiiyo haddii ilaahay ilaaho wixii jawaaba waan ku siin karaa laakiin xogtaas hadda aniga way igu cusub tahay. waaya haddii ay dhab noqoto maxaa talaabood qaadi kartaan? kollayto xaqiiqatan waxay u baahan tahay
horta waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inayna ay jirto in la ogaado marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhihi karo sababtoo ah maba ogi xogtaas oo ma hayo tallaabadaasaan yaan ku eegaynaa ama tallaabadaasaan qaadaynaa mid aan ku dhihi karo saacadan hadda ma aha maxaa haddaba caadiyan waajib ah ee saaran dawlad marka dawlad kale ay isku daydo inay falkaasi ka fuliso waddankeeda ma jiraan qaynuuno caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka degan ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwo laba geesood ah oo lagu xadgudbay su'aalahaasi waxaan hordhigay garyaqaan cabdulwaaxid cusmaan qalinle oo ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaan anigu marka hore sheegayaa kiiskan hadda aad weydiisay lama socdo faahfaahintiisa hadalkaygana ma aha hadal si gaara aan kiiskan ugaga hadlayo laakiin si guud baan uga hadlayaa markii faldambiyeed noocaas oo kaliya dhaco laba arrimood baa laga fiiriyaa faldambiyeedkan qofkan ajnabiga geystay ma qof shaksi ahaan u geystayba oo shaksi ahaan isagu dembigan u galay mise waxa ka dambeeya dawlad oo xaqiijin karaa inay dawladi ka dambayso haddii qofku uu shaksi ahaan u galay inta badan dawladuhu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyo baa jira ama agreements waxaa jira heshiisyo dhigaya in la isweydaarsado dadka eedeysanayaasha ah ee ay dawladuhu kala qabaan heshiisyo dawladooda ay saxiixdaan baa jira marka haddii faldambiyeedku shaksi yahay waa noocaas haddii la ogaado inay dawladi ka dambeysay oo cadeymaheeda la helo dawladuhu inta badan waxay xaq yihiin markaa inay dawladda faldambiyeedka laga dhex sameeyey dhexdeeda sida soomaaliya oo kale masalan arrintan hadda aad sheegayso oo kale in ay arrintaa ka mudaharaad diblomaasi ah ee ay samayso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmiya dawladda kale u gudbiso dawladu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in danjirayaasha ama ambaasadorada waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda waxaa dhacda sidoo kale in dawladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobolada ka jira regionka africa oo kale ama united nationka ama maxkamadaha caalamiga ah in dawladaha qaarkood ay xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan waxaa jira arrimo fara badan oo dawladuhu ay ku kacaan laakiin waxaa la ogyahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira dembiyada noocaasi aad bay u adag yihiin in la caddeeyo oo waa arrimo siyaasadaysan weye dawladuhuna inta badan waxay ku xaliyaan xaal mastuur waana arrimo runtii dawladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldambiyeedyo laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo waa arrimo xasaasi ah oo dawladuhu aad iyo aad bay arrimahaas uga fuliyaan maxaa haddaba dawladda Soomaaliya ay ka qabatay cadeymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka Itoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka ONLF bil kadib markii uu dhacay xukunka Cabdikariim Makhtal Maxamuud Axmed waxaa dawladda Itoobiya ay sii deysay maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu dhan tahay 114 haddaba sii deynta maxaabiistaas xiriir miyay la lahayd xukunka Cabdikariim Makhtal Maxamuud haddaba dawladda Soomaaliya iyo waxa ay ka qabatay kiiskan waxaan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ninka iyo sharcigiisa iyo xiriirkiisa iyo maaragtay maxkamadda go'aankeeda loo go'aansay adiguna waa sheegtay xukunkii inuu dhacay laakiin waxaan kuu sheegayaa maxaabiista la soo daayey inaysan xiriir la lahayn gorgortan kaleeto toona Ethiopia kaliya maaha maxaabiis waxaa laga soo celiyey maxaa la yidhahdaa India waxaa laga soo celiyey Ethiopia saa adiguba sheegtay waxaa dad Soomaali oo ku dhiban maxaa la yidhahdaa laga soo celiyey Libya hadda waxaa socda hadda aan isla hadlayno waxaa jira diblomaasiyiin Soomaaliya oo ku hawlan soo deynta maxaa la yidhahdaa dad Soomaaliyeed oo ku xiran Ammaan dad Soomaaliyeed oo ku xiran Iiraan kuwa ku xiran xuduudaha maaragtay maxaa la yidhahdaa Tanzania iyo Zambia marka safaaradaheena dadka jooga iyo diblomaasiyiinteena arrintaasay ku hawlan yihiin marka soo celinta dadka Soomaaliya xasiin ku jira waxay ka mid tahay iyo karaameynta iyo udoodida qofkii Soomaaliya ee soo jeedaysa waxay ka mid tahay maxaa la yidhahdaa sakarka xukuumadda marka wax cabasho ama protest ama ood ka samayseen dhacdadaas ma jirtay dhacdadee walaal dhacdada ninka la xukumay sanadkii hore June 22 2017 ninka haddaan kuu sheegay lagu xukumay lagu helay
inuu doonayo inuu dil ka geysto Muqdisho haddii laga sameeyo cadashooyinka diblomaasiyadda waa kuwo ku ekaada janarada diblomaasiga laakiin sirdoonka Itoobiya kama harin kiiska raggaasi waxaana la soo gaaray bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay markaasi oo dawladda Soomaaliya cadaadis ha uga yimaado dhinaca Itoobiya ama iyaduba iskeeda ha u go'aansatee ay dawladda Itoobiya ku wareejisay mid ka mid ah baanduulayaasha ururka ONLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo bilayar ka hor ka badbaaday shirqoolka sirdoonka Itoobiya ay maleegeen waraysiga khaaska ah ee Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax uu siiyey barnaamijkan galka baarista waxa markii ugu horeysay uu si qoto dheer u faahfaahinaya sida ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyey dawladda Itoobiya habeenku waa Arbaco 23 bishii August 2017 waa xilli fiida ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa galay hotel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo ciidan baa yimid laafay ugu garaacan waan ka furay hawshadayda qaabkaas ku bilaabatay ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay ku xireen qol madow su'aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen way ka hayeen meel ay deganayeen oo xabsiyo eedaas ku xidhi jiray geeyeen saddex habeen baan joogay Gaalkacyo saddexdii habeen lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray sargaalka ku soo qabtay ma taqaana ma aqaano sargaalka soo qabtay waxa la weydiiyeyna oo aan magacayga ahayna ma jirin aba yaraatee magacayga un baa la weydiiyey magacaygana umaana sheegin toos umaana sheegin galabtii dambe habeenkii ay soo qabteen galabtii dambe inay ahayd baan u malaynayaa iyagoo magacayga sheegayaan banaanka ka maqlahay hadal haynta magacayga banaanka ka maqlahay laakiin intii la iilay hebel ma tahay ma aynan ugu dhihin Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa markiiba galay tuhun waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF xubnahaasi oo ku dambeeyey xabsiyada Itoobiya maalintii Jimcaha ee 26 bishii August xilli galab dheer ah waxaa loo sheegay Cabdikariim Qalbi Dhagax in garoonka la geynayo si diyaarad loo saaro mar waa uu farxay sababtoo ah raggii isaga ka horeeyay laguma qaadi jirin diyaarad ugu yaraantaasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaaray madax iyo meel sare ayuu niyadda isugu dhisay haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula bayri karto dhinaca Itoobiya walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqadda diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho walbahaar waan qabay warma diyaaraddu dhinac kale u jiiraysaa oo dhanka midig ay ka shaqeysay sigsigay kulaada laakiin markaan arkay meeshaan ka soo caga dhiganayno badii bidhaanteeda markaan arkay aan gartay inaan ku soo dhawaanay xamar waa farxay aad baan u farxay dhowrkii habeen walaacay ahaana wuu iga baay anigoo indhahaygu toos u arkayaan baan soo degay airportka oo garanaya oo dadka qaarkii garanaya baabuur baa lagu qaaday waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho welina Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax looma sheegin cidda uu xiran yahay iyo sababta loo haysto waxaa la soo gaaray maalintii afraad tan iyo intii la qabtay kabacdi xamara loo keenay xamar waxna lagu weydiiyay aniga qoladan xamar markii la ii keenay maalin Jimcaha ahayd galabtii jamcuu sii wareegayay habeenkaas goor casarkii tamhay casarkiisii ya meel la yidhi waa baaritaan yaa la geeyey xal la weydiiyey keliya Qalbi Dhagax ma lagu yidhaahdo magaca maya baan ku yidhi magacaaga sheeg baa la yidhi Cabdi Muuse la yidhaahdaa baan ku yidhi wixii kale ku daran waxaa qolamaa tahay yaad ka tahay caruurtaada magacyo waxaas oo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kala qabiilkaaga ku weydiiyeen mar walba su'aalaha igu soo noqonayo ku jiray qabiilkaagu muxuu yahay marka intii ma jeclaysaneen inay dhaan qabiilkaagu waa maxay yeelay haddii aan eedaysanahay waxaan dhowray in waxaan ku eedaysanahay ama waxa lagu tuusan yahay in la weydiiyaan filayo laakiin magacayga marka soo la weydiiyo waxa ku xigaa waxa weeye qolamaa tahay ahayd arrintaas aad bay runtii igu ahayd arrin iyo cuntan weyday aanan fahmin waan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dembi maaha iyo wax la soo eedeeyo wax kale ma weydiisaan maxaa intan marka markii ugu dambeysay inay ahayd baan u malaynayaa yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaad tahay gudoomiye ku-xigeenka jihada ONLF maxaa ka jira arrintaasaa lagu haystaa aan ku yidhi ONLF nimada dembi maaha aan ku yidhi waa urur doonimo doona oo la yaqaano dunida caafimaad ku leh xafiiska ku leh dalka laga yaqaano oo Soomaaliya
marka ururkaas dambi maaha in qofku ka tirsan yahay laakiin aniga ninkaa sheegaysaa mihii baan ku yidhi aniga guddoomiye ku-xigeenka oo wanalafiihi hadda soomaalidu way taqaanaa guddoomiye ku-xigeenka oo wanalef meydkana way taqaanaa meydka degan yahayna way taqaanaa marka orda soo xaqiijiyaan ku yidhi waxaan waa garta ninka su-aalo mar intaan baa soo dhex gashay ninka su-aalahaas ku weydiinaya iyo dadka su-aalahan ku weydiinaya qofna ma ka garatay qof horey aanu aqaani kuma jiro haba yaraatee laakiin ninka su-aalaha weydiinaya qoladan ciidankiisa ee meesha joogtay ilaalada ah markii horreysay waxay igu yidhaahdeen ninka xafiiskaa ku jira u tag bay yidhaahdeen garas u tag bay igu dheheen garas muxuu ahaa markaan ku yidhi waxay dheheen waa ninka dambi baaraha garas la yidhaahdo u tag xageedu joogaa xafiiskaasu ku jira iyo igu dheheen xafiiskii markaan galay oo nin dhex fadhiyaan ugu tegey meeshii qolka ii tilmaameen kaasa waxaan ku yidhi garas ma adiga markaasuu wuxuu igu yidhi haahe qalbi dhagax ma tahay igu yidhi marka warwi waa ku yidhi marka ninkaas baa jiray waxaan magaciisa hataa garanahayo mana sii weydiin cid kale laakiin inta ugu badan ninki wax iga qorahayay buu ahaa waxaa la soo gaaray isniin 28 bishii August hiirtii hore ee maalintaasi ayaa lagu kallahay qolkii uu ku xirnaa Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaana loo sheegay inuu isdiyaariyo anigoo ku jira qolkii aan ku xidhnaaba aroortii waxaa ii soo galay niman ciidankii meesha ilaalada ahaa kamid a waxay yidhahan sarwaalkaaga qaado kada sarwaalkaagii oo ii keeneen oo iga maqnaan shaarkaaga xidho wax iyabaan xidhay waxaan u qaatay in la ii geynayo meel maxkamad in la ii geynayo mar qalbiga way iga soo dhacday xilligan la ii diyaariyey inkastoo waa xilli hore oo aan lahaa ma furna xafiisyada iyo maxkamadu haddana waxaan u qaatay in madaxda dalka qayb kamida ay doontay inay aragto oo la ii geynayo baan u qaatay gacmaha markii laiga xidhay aad baan u shakiyey gacmaha markii laiga xidhay ama indhaha aan laiga xidhin baa banaanka imid banaanka markii aan imid baa taliya xabsigu wuxuu yidhi war indhaha ninka ka xidhay markaasaa indhahana laiga xidhay xadhigii gacmaha laigu sii adkeeyey kii indhaha laigu adkeeyey laakiin haddana waxaa isyeelan waayey waxa uu ismoodsiiyey iyo hadallada ay dhagihiisu maqlayeen kadibna waxaa loo qaaday garoonka Muqdisho baabuurka lagu qaaday baabuurka laga wareejiyey kontaroolo way jiraan aan sii dhaafnay kuway ahayn ma garan karo sidaasaa waxaa lagu wareejiyey baabuurkii dambe lagu wareejiyey baan waxaan maqlay dad ka hadlahayo oo ku hadlayo luuqadda amxaariga baabuurkaas wax ka yar 100 mitir buu waday ciidan baa iga dejiyey diyaaradda halkaasna laiga saaray sidaasay horta xaaladeeda xamar aan kaga baxay ay ahayd Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa diyaaradda sida ay ku hakatay magaalada Baydhabo waa sida isaga la ahayde marka waa laiga soo dejiyey diyaaradaasaa laila soo wareejiyey si wareegaha saasoo kale yaa laila soo wareejiyey meel aan malayn madaxa diyaaradaasaa laila soo wareejiyey meel baa la istaajiyey meeshaa la istaajiyey gacmaha ciidan baa gacmaha hayay ma arkaynin dadka kale sii taagan laakiin shanqar baan dareemayey dad meesha taagnaa iyo intii yaraydeen taagnaa kuwa kusoo socday iyo jaanqaadkooda un baan maqlayo unsiga marka ma caddayn karo laakiin meeshaasu meeshay ahayd in yar markaan taagnaana diyaaradii baa laigu celiyey inay iyadii ahayd iyo inay nooceedii ahayd ma garanayo laakiin diyaaradii baa laigu celiyey muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka tallaabinaya xuduudda Soomaaliya goday markay ka tegtay anigoo weli diyaaradda saaran yaa waxaa laga furay indhaha markaasuu ninkii indhaha iga furay wuxuu yidhi meeshani waa goday buu igu yidhi nin ciidanka Itoobiyaanka ka tirsan buu ahaa afkooda igula hadlay igu yidhi meeshani waa goday luqadooda aad umaana fahmaynin laga badanna umaba lahayn oo dee hadda hadalka soo dhahaan maanan sii raacaynin laakiin magacii baan qabsaday meeshan waa goday buu yidhi anoo diyaaradda saaran baan marka fiiriyey dhankay magaalada ga tahay meeshaan taagnaayey markaasaan arkay ciidii inay ciidii goday u eg tahay magaalada dhaanteeda meel ka arkay diyaaradii baa laiga soo dejiyey anoo markaan indhaha ka xidhnay laakiin gacmaha sidii uga xilan waa laysoo dhex mariyey eeraboodka aan ku dhex lugaynay meel baan waxaan ugu nimid kuwa qolyahan dabaqoodhiga iyo waxyaaba meelaha tuulan baan ugu nimid iyo qolyahan kale ciidamadii dee meesha joogay Itoobiyaanka ahaa dad un dhammaantii un qolyahaas un ka wada tirsanaa yaa meesha ugu nimid meel bay ay deganayeen bay ugeeyeen waxay damcaan inay iga qaadaan oo dhinac baan uga jeedsada waan diidanaa inay sawir iga qaadaan wejigaygaan u diidanaayo marba dhan bay igala wareegahayeen oo iskaga kay boodhaadhiyeen iskakay aflagaadaynahayeen laakiin waxaas oo dhan maaragtay wax hadda macna weyn samaynahay maahayn wejigayga un baan diidanaa inay ay soo hortaagaan isagoo toosa inay sawir iga qaataan baan diidanaa inahaas kadib haddana waa un lay caraabiyey xilli aanu malahayn 5 galabnimo haddana bir dhaba laiga dejiyey meel xun oo xasiyada yaa habeenkii maqribkii markay ahayd yaa lagu kaxeeyey meel aad runtii u shool xun oo aad u dhib badan oo
aan qofna ku jiri karin saaxado badan bay ahayd laakiin qofkii sideedoo kale danta ku qasataa uu iskaga jirahayay kama bixi karin halkaasay maalintii dambena igu hayeen waa layga qaaday galabtii dambe xilli aan u malaynahay inay 5:00 galabnimo ay qiyaasta tahay yaa taaba meel u dhowoon safrada liyaado airport ciidamadu ay leeyihiin yaan ka tegey iga dejiyeen qolaalka lagu sugaysa aanu tagnay oo sirdoonka dalka ah baabuurkii ay wateen baa lagu wareejiyey katiinada hore iga xanayd intii laga furay baa yaa nimankii waday la noqdeen toodii su kale qoladana hayseen baa lagu bedelay sidaas waxaa lagu geeyay meel yar oo fasiya fursadii ugu horeysay ee dawladdu ay heshay inay arrinta kaga hadasho waxay ahayd 30kii bishii August markaasi oo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu qabtay shir jirayd isagoo ay garab fadhiyeen xubno ka tirsan dawladda oo ku jiro taliyaha hay'adda nabad sugidda oo hay'adiisa loo haystay inay fulisay qabashada iyo dhiidista Cabdikariin Qalbi Dhagax markii mid kamid ah saxafiyiinta uu su'aashaasi si toos ah u weydiiyay ra'iisul wasaaraha waxaa mikrofoonka qaatay taliyihii nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe waxaana uu sheegay in kiiska sargaalka ONLF oo xasaasi ah aysan xilligaasi ka hadlayn dawladda Soomaaliya hadalkaasi waxa uu dhinaca kala xaqiijiyay dhiibista Cabdikariin Qalbi Dhagax intaas kadib waxaa tallaabadaasi ka dacwooday xildhibaano ururo bulsho iyo dadweyne caadi ah oo meelo kala duwan ka bannaan baxay waxaa dhiibistaasi ay ku soo beegantay iyadoo mar walba dadka Soomaalida ah ay xasaasiyad badan ka qabeen faragelinta shisheeye culayska ka soo fuulay dawladda dhinaca dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka oo jawaabo dalbanaya waxay ku qasbeen in 6dii bishii Sebteembar golaha wasiirada Soomaaliya ay markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadlaan arrinta abuurtay dabaysha siyaasadeed waxayna dawladdu difaacday tallaabada ay qaaday iyadoo u cuskatay is-afgarasho hore u dhaxmartay mas'uuliyiin ka tirsan dawladdii hore iyo Itoobiya intaasi waxaa dheeraa in dawladdu ay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyo ururka ONLF la xiriirisay urur argagixiso ah gaar ahaan al-shabaab afyeenkii dawladda ee xilligaasi ahaana wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ayaa warbaahinta uga warramay mowqifkii dawladda golaha ayaa ugu horeyn warbixin ka dhageystay hay'adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee ONLF waxayna sheegeen inuu abaabulayay falal isku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhaxwaday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argixisada ee al-shabaab eedaha dawladda iyo la xiriirinta al-shabaab waxaa si xoogan u beenisay jabhadda ONLF hadalka dawladdu ma dejin xiisadii taagneyd Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax waxa uu xilligaasi ku jiray xabsi ay leeyihiin sirdoonka Itoobiya saraakiisha Itoobiya ee sirdoonka ayaa u soo jeediyey arrin uu arkay qayb ahaan in la doonayo in lagu dejiyo xiisadii ka taagneyd magaalada Muqdisho dhinac kalena uu arkay in lagu waxyeeleynayay mabda'iisa xaaladan adag ee xamar ka dhalatay iyo qalalaashadan shacbiga Soomaaliyeed iyo kacdoonkan uu sameeyay iyo baarlamaankan hawlihiisa yaan u baahan in la damiyo taana waxaa lagu damin karaa in la yiraahdo Cabdikariin hadal asaga in laga hadliyo telefishinka la geeyo idaacadaha warsiyo yiraahdo anigu Soomaaliyeed inuu yiraahdo aniga keenay inuu yiraahdo Soomaaliya maxay naga rabtaa inuu yiraahdo baarlamaanka inuu u jawaabo shacbiga inuu u jawaabo waxaas oo dhan inuu lacag mariyo sidaas xaaladda xamar ku dayay kartaa madaxdii Itoobiya aniga gacanta ugu haysay arrintaas dhaxdooda ku kala jabeen qayb kamid aragtida way qaadatay waxay goosteen in aan anigu hadlo telefishinka la geeyo idaacadaha waraysi siiyo aan waxaas ku hadlo Soomaaliya inaan dhaho أنا أشكيني إرياضا أخذ مقدس أوضاً باي يقاركو ديلي ينادي وحافونتي يعاولي ومجعلان لها ماركتي إنام شيئو أصحان كيسا ميين قيب كميدة ملاحظ يتيجيان كي قعنتي يجيسا قيب كميدة قارهان هيدا سبتون كملاحظة أوصفي يا قشا وحي قارتي يوشي أنيقا عن دورتنو يا إنا خصب لايقا قدقين إنا وحصوها الله لكن هل ويديو حبيو وقلاضو اتخيار كسفو وقلاضو marka aanu soo bandhigno haddii hagaag ku hadlaano waa shaqadan mayn haddii diidana cid ku khasbi karta iyo inaan ku qadamaayo ma dhacay yiraahdeen maalmo yar kadib qaarkood baa hawsha ay leeyihiin ay yiraahdeen erayadaas oo qoran bay dhahaan aan ku yiri Soomaalinimadu ma aha siyaasad Soomaalinimadu waa isriyo u dhalasho tan aaminsanahay anigu inaan Itoobiyaan ahay noloshayda oo dhan lama dagaalameen Itoobiya lama dagaalameen
anigu ma aaminsan inaan Ethiopian ahay aabahay ma aaminsan inuu Ethiopian yahay awowayaashayna ma aaminsan inuu Ethiopian ahaayeen ilmahayguna ma aamini doono inuu Ethiopian yahay intaas aan ku yiri wax marka aan aqbalayo ma jiraan wixii kale qorsheed qaadanaysa yeela kiiskaygu uu cadda dawladda Soomaaliya ay qabatay kiiskaygu waa kiiskayga oo man ka warhayso aniga wala yaqaana marka ma aqbalayo aan ku yiri dhowr jeer oo kale la igu soo celceliyay erayada inaan isticmaalo dhowr jeer baa la igu soo celceliyay jigjiga inaan tago oo la geeyo jigjiga aniga oo aan maxbuus hayna hadli karo idaacadaha ka hadli karo telefishinada ka hadli karo waxa ku hadlaya dhowr bilood laga soo bilaabo markaan xidhnaa bil kadib qiyaas markii la yahay ilaa iyo bishii May intaas oo igu soo noqonaysay runtii erayadaas oo igu soo noqonayeen baarlamaanka go'aamadiisii ka hor iyo kadib igu soo noqonayeen kusoo noqoshadan dambe marka iyadoo go'aankii baarlamaanku dhacay haddana lagu soo celceliyo aanu qaadanayay oo u fakiranayay macnaheedu inuu yahay inaan ay xar dambana ayna iga imanin noloshayda iyo taariikhdeydana dadka lagu baabi'iyo sidaa darteed ana waan iska diiday waxaan aaminsanaana intii marnaba kama leexan beena kama sheegi sidaa ana oo baan ilaahay ka soo qaatay 13 bishii Sebtembar 2017 baarlamaanka Soomaaliya waxay guddi u saareen soo baara sidii loo dhiibay iyo cidda dhiibtay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaana la siiyay muddo bil ah inay ku soo diyaariyaan taasi oo dib u dhac uu ku yimid ugu dambeyntiina waxay guddigu warbixintooda hor keeneen baarlamaanka Soomaaliya 19 November 2017 waxayna go'aamiyeen in gudbintaasi Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax ay ahayd sharci darro waxay kaloo sheegeen in ururka ONLF aysan ahayn urur argagixiso ah go'aanka guddiga waxaa baarlamaanka u akhriyay xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh guddiga waxaa u soo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax aan loo marin hab sharci ah lagana talagelin hay'adaha garsoorka iyadoo isla markaa ay maaraysay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka kaliya laguna taleeyay go'aan aan ku dhisnayn xog aan sugnayn oo la siiyay madaxda qaranka guddigu waxay mas'uuliyadda qabashada iyo dhiibista Qalbi Dhagax dusha ka saareen hay'addii nabad sugidda xilligaasi waxaa hay'adda nabad sugidda madax ka ahaa Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloshe waraysi aan arrintan kala yeeshay goor hore waxa uu ku sheegay in go'aanka dhiibista ay ka warqabeen madaxda sare ee dawladda golaha wasiirada soo intay fadhiisteen wasiirka faafinta uu hadlay sababta loo dhiibay iyo waxa kalifay iyo go'aamo kale ka waaweyn soo lama qaadan anigu hadii ma go'aan dawladda ay soo u qaadan karaan aniga markaas caaway mugtahay go'aan dawladda ka baxsan qaadto in dawladda aniga khasabtama dabcan taasi waxay ahayd maareynta markii arrintu ay xasaasiyad badan abuurtay siday u maareeyeen ayuu ka hadlay wasiirka warfaafintu laakiin waxa kaloo jirtay hay'adadka ku dhadhow dawladda markii la wareystay inay dhaheen arrintani waxa hawsheeda ugu weyn lahaa Sanbaloshe marka arrinta hadda adigu lahaydna u sheeg ummadda Soomaaliyeed haddii aad lahaydna ciddii lahayd inaad sheegto soo intaas kaagama habboona ma anigu inaan farta isku fiiqo qof kale aan farta ku fiiqo ma rabo waa garta baarlamaan baa baaray waxay dhaheen qaabkii lagu dhiibayna qalad buu ahaa sidii loo soo qabtayna qalad buu ahaa waxa kale sheegeen inuu nin muwaadin Soomaaliyeed oo ciidanka Soomaaliya ka soo tirsanaa inuu ahaa wada aniga please arrinkaas Qalbi Dhagax wax badan inaan ka sheego ma rabo baarlamaankuna habkii hadda ay u qoreen hab oo xitaa very unprofessional ah waa garta marka ma rabo wax badan inaad iga qodto oo Qalbi Dhagax ku saabsan sideed iyo 20 bishii Juun ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnay 10 bilood kadib markii loo dhiibay dawladda Itoobiya Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu dib u helay xorriyadiisii waxaana lagu sii daayay cafiska maxaabiista siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed isbedelada Itoobiya waxay saameeyeen gobolka gaar ahaan xiriirkii Itoobiya iyo Eritrea oo saldhig u ahayd ururka ONLF iyo ururo kale oo mucaarad ku ahaa dawladda Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa intii Abiy Ahmed uu joogay Eritrea waxay liiska madow ka saartay ururka ONLF iyo laba urur oo kale 28 bishii aynu soo dhaafnay ee Juulaay waxa Eritrea booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana intii uu joogay dalka Eritrea uu halkaasi kula kulmay gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cusmaan oo kulankaasi kadib idaacadda VOA u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ugu dambeyn raali gelin ka bixiyay dhiibistii Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax inkastoo dawladda Soomaaliya aysan arrintaasi si rasmi ah u xaqiijin una beenin